السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي يوتيوب channel ka daawaneysaan waa caraalehena fadlan haddii muuqaalkan uu soo gaaro subscribe like share comment intaba waa dhankaaga ugu horeyn waxaan rabaa muuqaalkan inaan kaga hadlo muuqaal waqti xaadirkan baraha bulshada saameyn ku leh ama waqti xaadirkan baraha bulshada ka taagan kaas oo ku saabsan dhaawac halis ah oo ka soo gaaray dhanka iyo wajiga youtuber caan ah oo aad wada garanaysaan Derisle Cabdi kaas oo xalay ilaa maanta lagu soo post gareynayo baraha bulshada dhaawacan aad u jeedaan ma ahan dhaawac cusub sida dad badan ay wada ogsoon yihiin dhaawacan waa dhaawac dad badan sida ay ku qeexeen ama sida aad ka arki kartaanba waa mid prank fashilmay u eg Derisle Cabdi prankigan wuu ka halaabay maadaama haddii la dhihi lahaa xitaa waayahan Derisle Cabdi ayaa dhaawac soo gaaray muddo ayuu la xanuunsanaa waa kana dhaawacii ka soo gaaray Derisle haddii lagu soo post gareyn lahaa sawirkaas waxbay ahaan lahayd laakiin wejigan dhaawaca ku yaalo ma ahan dhaawac cusub dhaawac soo bogsaday ayuu u egyahay haddiiba la qaadanayo xitaa dhaawac soo bogsaday ayuu u egyahay waxaan dhihi karnaa haddii dhaawac cusub uu yahay xitaa haddii aad muuqaalkaaga ama qaybta shaatigaaga ama dharka xiran tahay wada dhiig ahaan lahaayeen ama wejigaaga qaybo ka mid a xitaa dhiig ay ahaan lahaayeen waxbaa dhihi lahayn waa dhaawac cusub laakiin dhaawac cusub oo halkan ku yaalo haddana sunniyaha aan wax gaarin tan waqti baa la ismarsiin jiray laakiin waqtiyadan ma aha xitaa haddii aad soo post gareysid wax run ah dadka qaarkii waxay ku leeyihiin waa prank iyo waa been marka Derisle tan waa ka halawday ama way ka fashilmatay aan dhihi lahayn laakiin dad badan waxay ku taageerayeen in dhaawacan uu ka dambeeyay youtuber kale oo caan ah laakiin haddii qof walba uu u kuur galo wuxuu arkayaa xaqiiqda dhabta ah ee ka taagan marka Derisle Cabdi tan way ka halawday dad badan ayaa ka falceliyay iyo Carla ayaa ka mid ah wuxuu ku qeexay in wuxuu soo marsaday meelaha make up soo marsaday laakiin Derisle hadduu u baahan yahay in gacan loo qaado hal la soo xariiro صح hadda lama dilin Derisle laakiin haddii uu jeclaystay Derisle in la dilo ha soo waaniga هاي داره مش ديبي meel lagu dili karana ma joogo Derisle magaalo fiican uu joogaa magaalo dad sharaf leh ay joogaan ayuu joogaa lama dili karo haddii Derisle la dilo Samiixa ceeb ku taa Samiixa makeup-kan ay u marisay Samiixa Khaliil waayahanba ay wada joogaan Derisle wuxuu joogaa magaalada Nairobi